aan kaftame madaxweyne Muuse Biixi yaa isbuucii hore maruu baarlamaanka Somaliland u jeedinayay khudbad ayuu asagoo la garnaqsanaya garaad jaamac garaad cali ayuu wuxuu yiri Somaliland xuduudaheeda aabahaaba wax ka soo saxiixay maamul ahaan iyo jiritaankeedana adeerka garaad Cabdiqani ayaa wax ka soo saxiixay marka dee wixii ay adeerka iyo aabaha ay soo saxiixeen hal maalin baan isaga baxaya waan ka tagayaa dee gar ma ah marka waxaan rabaa inaan iraahdo madaxweyne Muuse Soomaaliya waxay tiraahdaa waxaa jirta gar aan naqayso adiga kugu naqsan ayaa jirta waxay tahay gartaas dowladda Soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda Soomaaliya jiritaankeeda iyo yagleelkeeda waxaad ku lahaydeen haddaad tihiin dadka mas'uuliyiinta reer Somaliland idinkaa waxaa ku lahaydeen go'aan la wada qaatay ayay ahayd go'aan waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed oo istiftaa loogu qaaday hal maalin waa isaga tagna waa isaga baxnay ma filaayo inay tahay shay oo maaragtay sidaas u sahlan ama macquul u ah inay tahay ma filaayo waxay u baahan tahay waxaas ayaga ah xag iyo xagaba in laga wada hadlo isku qanciyo ayay u baahan tahay marka runtii mar walba dadku waa la doogayaan la dacaron baa leeyahay waxa loo baahan yahay dadku inay wada hadlaan wada xaajoodaan isqanciyaan anu diyaar waxaan u nahay mar walba inaan isqancino xag iyo xagaba inaan isqancino wada hadalno maaragtay wax walba oo dhaxdeena ahna aan ku dhameysano wada hadal iyo aan ku dhameysano colaadda iyo dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood run ahaantii aadan uga xunahay waxa ka taagan magaalada Laascaanood dagaalada iyo colaadda iyo barakaca iyo dhibaatada ka taagan aadan uga xunahay runtii dhibaato aad iyo aad u mug weyn ayaa magaaladaas ka jirta aday tahay mid bini'aadanimo aday tahay mid amni aday tahay mid siyaasadeed intaba ayaa ka jira waxaan jecelnahay runtii kuna baaqayna in colaadaas ayada si degdeg ah loo soo afjaro in loo dhago nuglaado baaqyada nabadeed ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ka imaanaya dowladda Soomaaliyeed ka imaanaya cid walba beesha caalamka intaba in loo dhago nuglaado in runtii dadaalada odayaasha dhaqanka maaragtay ay wadaan ognahay inay Laascaano ayna tageen haddana magaalada Hargeysa ay ku sugan yihiin in dadaaladaasi loo dhago nuglaado xabadda la joojiyo wada hadal isugu yimaado ciidamada la kala qaado si kasto oo aynu isku dilnaa waxa xaqiiq ah marka ugu dambaysaa inaan noqon doono dad heshiiya inaan noqon doono ayaa xaqiiq ah marka saa daraadeed hadaan marba aan heshiin doono waxa wanaagsan inaan hadda wiilashu aysan naga dhiman inaan hadda dhibaatada la sii waasicin ayaa fiican mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.